kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysa email kastoo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan idinka diyaarinay wafdi ka socda dalka Bahrain oo matalayay hay'adda lagnati al-a'maal al-khayriya jimciyatu al-islaax ayaa waxay socdaal kala duwan ku soo mareen deegaano ka tirsan Somaliland iyagoona ka qayb qaadanayay xaaladda abaareed ee ka jirta Somaliland waxaana ay dadka ay ku booqdeen deegaanadooda gaarsiiyeen raashin hilib بيو كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي لاحظوا هذه بيت من البيوت الموجودة walaalayaal kani waa guri ka mid ah guryaha ku yaala halkan waxaa degan dad ka soo barakacay kana soo cararay goobaha ay ka dhaceen abaaraha baani guriga labaad ee aragtaan haddii uu mid la mid ah aad deganaan lahaydeen sidoo noqon lahaa xaalkiinu waa inaynu ku shukrinaa nimcooyinka alle waa in la ahaado kuwa caawiya walaalaheen تسكن في مثل هذه البيت لو اليوم واحد فرضا شلون يكون حالنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا شاكرين للنعمة ويجعلنا مبادرين وسباقين لإغاثة إخواننا في الصومال حتى يخرجوا من هذه المعاناة وهذه الأزمة إن شاء الله. كن أمل الإنسان. كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيئا لكم أيها المحسنون. هنيئا لكم. waxaan idinku baaqayaa walaalaha wanaagsanow waxaa halkan taagan walaalaheen baahan waa kuwa guryahoodu waxaan idinku baaqayaa in aad barbar istaagtaan ilaahay wuxuu yiri qofka qof nooleeya waxa uu nooleeyay dadka oo dhan waa alla mahadi waxaanu soo gaarsiinay tabarucaadkiini alaabtan oo ah daqiiq iyo waxyaabo la mid ah deegaankani waa deegaan lama degaan ah oo go'doonsan ilaahay baana mahadle هذه الأسر في هذه المنطقة الصحراوية المنقطعة والحمد لله رب العالمين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. xubnaha waftigan ka socday hay'adda ayaa waxay guryahooda ku booqdeen dad danyar ah waxaana gaarsiiyeen raashin kala duwan. نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها xubnaha waftigan ka socday dalka boqortooyada Bahrain ayaa booqday malcamad quraan ku taala duleedka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana la kulmeen ardayda halkaasi ku barata quraanka kariimka ah oo iyagu ugu baaqay ummadda reer Bahrain iyo ummadda muslimka ah inay ka soo qayb qaataan dhismaha xarunta xifdiga quraanka kariimka waxaana mid ka mid ah mas'uuliyiinta waftigaasi uu yiri يا إخواني ويا أخواتي يا أهلنا المحسنين أهل الإحسان في البحرين تأملوا في معالم مركز التحفيظ مكان فيه شبه جدار وفرسدا walaalahayna muxsiniinta Bahrain waa goob lagu barto xifdiga quraanka kariimka waa goob gidaar banaan ah waa qol bila albaaba bila daaqada oo aan lahayn jiingad oo aan waxba lahayn sidaas daraadeed waxa ku soo ururay caruur waxay haystaan looxaan ay gacmahooda ku sameeyeen waxaanu halkan أن يدعموا مركز تحفيظ بناء مركز تحفيظ في هذا uga yeedhaynaa dadka ehlu khayrka ah meel kastoo joogaan inay soo caawiyaan xarunta xifdiga quraanka kariimka si loogu dhiso goobtan Somaliland waxaanu ilaahay weydiisanaynaa in uu maalin maalmaha ka mid ah indhaha iyaga iyo indhihiina tuso furitaanka waxaad ku tabarucdeen walaalihiin iyo dadka aad jeceshihiin ee Somaliland si aynu u dhisno xaruntan xifdiga quraanka kariimka waxa uu idinku biirayaa miisaanka xasanaadka ilaahay waa weyn ilaahay baa mahad leh dhaha ilaahay waa weyn ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh أقوى الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم. أفضل له يوم القيامة
من أن يحصل على ناقتين كبار وجميلين. طيب وحود الله شيخا وحن إذن كنا بدنا idinku hambalyeeyno quraanka aad baranaysaan iyo sida aad u wanaagsantihiin aad quraanka u baranaysaan iyo yaani nabigu soo ugu bishaareeyay sallallahu alayhi wa sallam qofka quraanka baranaya maalinta qiyaamo hadduu xataa laba aayadood barto inay uga fiican tahay maalinta qiyaamo isagoo oo la siiyay laba hal oo geelo waaweyn laba aayadood barato ayaa ka fiican adiguna maalinta imsa aayadood barata 3 4 marka sidaas ayuu yiri sheekhu jazakumullah khair anigoo idinku hadiinaya bismillaah anigoo magacaygu yahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacaygu yahay amiin maxamed amiin yaasiin oo inigu hadiinaya looxaygan oo waxaan haystaa hadiyada ugu qalanay haystaa looxan yahay waftigaana soo booqday Bahrain anigoo ugu deeqaya waftigaana soo booqday Bahrain waxaan anigoo ugu deeqaya looxay ugu qaalisanayeen quraanka ku dhiganay ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير يا أمين يا أخواننا في البحرين يا أبنائنا يا شبابنا في البحرين يا طلبة التحفيظ في جميع مراكز التحفيظ إلهي با محله إلهي هكا عبال مريو أمين ولا لهن بحرينو دلنيرد بحرينو أرتيدا وحكا برتا حرومها حفتك القرآن الكريم كاي بقرطوية بحرين يا وحي لمده وإنكيني وولالكين أمين محمد ياسين وحيدين هدية لوحان ويكو قرنتهاي آيادها قرآن الكريم كا وحانو إسيي أنيقا شخصيا أهانتاي وحاو سيدو كلا أسيي لما ardayda xarumaha xifdiga quraanka kariimka ee Bahrain waxaan geyn doonaa ood arki doontaan Bahrain waxa uu yiri ardayga amiin waa hadiyad ardayda Soomaaliland ay siisay Bahrain waa inay qaadaan oo ilaaliyaan ilaahay ha ka abaal mariyo walaalkeen amiin يا ابننا أمين وبارك الله فيك. كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. هذا هو شكل المركز 3 فصول مهدمة. halkani waa qolka saddexda fasal ah ee dumay ee xarunta xifdiga quraanka kariimka ah ee Boorama waanu dhisi doonaa waanu ka qayb qaadan doonaa في بناء المركز تنافسوا يا إخواني وأخواتي. intaasi kadib wafdiga ayaa gaarsiiyay booyado iyo raashin dadka abaaruhu saameeyeen ee soo gaaray deegaanka Tulli oo ka tirsan gobolka Awdal waxaanay dadkaasi la tukadeen salaad roob doon ah oo Alla lagu bariyo inuu raxmaadkiisa u shubo خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. اللهم يا رب العالمين اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا من يقول للشيء كن فيكون يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وحين يري سيان أول بوغين من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 نك النبي مركل يصلي إلهي 8 قرب يصلي إيش مارتي واحد صوص ولا معناته ومعنى خير وارنتي ومعنى خير وخميس إدي صومن وصومن تاي إلهي رب نبضي عن قبائل نقبرنا إلهي عافمات ما خبرنا هبينك ليلة الجمعة صلي النبي ولا بضيا ما أنت صلي النبي ولا بضيا قار والبصلي النبي ولا بضيا كاسان معي نوجدتا الآن إن شاء الله نبدأ إن شاء الله أمارتي أمورنا وادعو الله خيرا في كلمات الأخيرة. نعم. لا أريد أن أطيل عليكم وأشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
dadkay abaaruhu saameeyeen ee soo gaadhay deegaanka Tulli ayaa iyaguna waxay u mahadnaqeen waftigan ka socday boqortooyada dalka Bahrain waxaana uga mahad celiyeen mucaawamadan ay soo gaarsiiyeen. waxaan u mahad celinaynaa ummadda Ilaahay noo soo diray ee muslimka ah ee abaarahana soo galay Ilaahay naga noo keenay ilaahay mahad iyo ka iskale. waxa kale oo mahad celinaynaa ummadda Ilaahay ee maxaan ku raayay na soo xasuusatay ee noo keentay raashinkaasi ayaan u mahad celinaynaa. Bahrain baan u mahad celinaynaa. dawladana noo soo qaaday raashinkaasi ee Bahrain baan u mahad celinaynaa. Ilaahay baa mahad leh. Ilaahay ka jisaaysiiyay kana ducada hayna noo duceeyeen iyo roob doonta ay noo akhriyeen Allah ka aqbalo. kiino keena Ilaahay ka jisaaysiiyo waxa la wuxuu la baxay Ilaahay ka sawaabiyo annaguna waanu ka gudoonay salaan iyo waxaan ku leeyahay dawladda iyo maxaan ku dhaadayay Soomaaliland wixii meesha joogaba salaan bay naga leeyihiin kiino keenay salaan khayr qabta iyo nabadgeliyo iyo maxaan ku dhaadayay Ilaahay nagu kala amba bixiyo meesha si khayr qabta nabadgeliyo iyaan rajaynanaa aan jecelnahay aan ogolnahay Ilaahay rabbiga abaarta iyo aafaadada iyo wixii jira Ilaahay ha naga bixiyo ha naga salaamad bixiyo wax khayr qaba Ilaahay noo keeno nimco khayr qabta Allah noo keeno maxaan ku dhaadayay qolada raashinka noo keentay dhexray salaan iyo maxaan ku dhahay hambalyo iyo sacab iyo mashxarad iyo inagu leeyihiin. xubnaha waftigan ka socday boqortooyada dalka Bahrain waxay soo gaarsiiyeen dadkay abaaruhu saameeyeen ee soo galay gudaha magaalada Boorama hilib geel. احنا اخوانكم من البحرين جئنا نمثل الاخوه والاخوات في البحرين ووصلنا لكم بحمد الله الى قريه الامل لرعايه الايتام لتوزيع لحم الجمل على المحتاجين والمستحقين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمكم وان يتقبل من المحسنين. جزاكم الله خير. وعاقبنا ان الله جمعيه الغدر الخير البحرين الخيريه وحان idinku daranayalkan qodona soo qaybinay khayr baan idin jeednaa Allah idin barkeeyo ان شاء الله. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي. kadib waxay duleedka magaalada Hargeysa ugu qaybiyeen xubnaha waftigani dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada Hargeysa. كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. kadibna waxa uu laabteen dhanka gobolka Maroodijeex iyagoo gaarsiiyay dawooyin dadka ku nool deegaanka Saban Wanaag. كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. إلهي بام هذا waxaanu kaloon u mahadnaqaynaa nimanka islaamka ee walaalaha iyaga ah ee noogu keenay goobta dadka abaaraysan ee dhibaataysan ee buka daawada tuulada la yiraahdo Bal Ahmed iyo deegaankan wagagaarka daabeedahan ku dhow dadkii bukay ee ka yimi lagu dabiibayo ama lagu daweynayo waan iyagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayran. waxa kale oo aan leenahay haddii alla ka dhigo
cisbitaalkan la yidhaha international ee isaguna dee ma garanaysaa hawshan fulinaya waan u mahadnaqaynaa. kan saaka waxaan u soo baxnay dhakhaatiir ka kooban 10 dhakhaatiir oo isugu jira cisbitaalka international hospital halkaas ay ku daweynayaan dad aad u fara badan. waxaa kaloo la socda halkan wafdi ka socda Bahrain kuwaas oo iyaguna eegaya xaaladda qiimeynta iyo abaaraha. dhakhaatiirtani waxay ka kooban tahay 10 specialist oo kala duwan deegaano fara badan oo deegaanka ay u kala baxaan wixii halkan ay ku arkaan dadkani ka xanuunsanaya halkan lagu daweeyaa wixii xanuunkooga halkan aan waxba laga qaban kareyna Hargeysa ayaa loogu soo gudbiyaa oo cisbitaalka international hospital ayaa dadka lagu eegaa. mashruucan hay'adda ARC ama lajnada tafriiqiga liliqaasa iyo dhakhtarka international hospital 10 dhakhtar oo 10 takhasus oo kala duwan ah ayaa halkan jooga. waxaan u mahadnaqaynaa wafdiga naga soo booqday waddanka Kuwait. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم على هذا العمل الفريد الذي هو مش أول مرة، هذه مرة ثالثة جاءوا هذه المنطقة وسووا عمليات أكثر من 2000 شخص، ودي مرة ثالثة. نشكر على جهودهم الفعال مما يسوون العمليات الجراحية. يكون بحرين كالسعودة هذه يبدو أنكم هذا وحان كعد سنة meeshan way ka dhacday abaar baan oo biyo la'aan iyo baad la'aan iyo gaaro oo degdeg la soo gaaro. aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa dawooyinkan ay u keeneen iyo kaalmadan ay u keeneen caafimaad. daawadayaal intaasaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii aanu idinka diyaarinay waftigii ka socday dalka Bahrain ee mucaawimada soo gaarsiiyey dadka abaaruhu saameeyeen ee ku noolaa qaybo ka mid ah Somaliland. waa filim qaadista iyo farsamadii Cabdiraxmaan Axmed Muuse Dalmar iyo anigoo Mukhtaar Ismaaciil Cali oo idinku dhaafaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.